adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oosha axdi kugu maraya arligaygo nikasaka odeka abaldhace adoonsiga la tegay soo mooga hona soo mooga noloshiisa oo idin soo mooga waxay ku ambaqaadaba soo mooga oontaadi ina tahay soo mooga dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog waran oo idinkaga imaanaya raadiyo dalmar xaruntiisa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland. barnaamijka xog waran ayaa caawa waxaan gabi ahaanba diiradda ku saari doonaa heshiis dhawaan dhexmaray shirkadda SKA iyo dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. heshiiskaasi ayaa waxa uu shirkadaasi u siinayaa awood in ay ku maamusho dhammaanba garoomada wadanka Soomaaliya sida ku qoran heshiiskaasi. haddaba shirkadda SKA waxa ay tahay shirkad ajnabi ah oo iyadu ka shaqeysa wadamada ay dhibaatadu ka jiraan sida Ciraaq, Afghanistan iyo meelo kale haatanna lugaha la gashay wadanka Soomaaliya. heshiiska ay la gashay shirkadani dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ku cad in ay shirkadani gabi ahaanba maamuli karto garoomada wadanka Soomaaliya, taasoo shirkadda awood buuxda u siinaysa in ay maamusho garoomada ku yaala meelaha ay ka taliyaan maamul goboleedyadu sida Somaliland, Puntland iyo qaar kale oo wadada ku soo jira. qoraalka koowaad ee heshiiskaasi ayaa waxa ku qoran in ay shirkadda SKA maamuli karto sidan horeba u sheegnay dhammaanba ariboorada wadanka, maadaama la isticmaalay ereyga dhammaanba garoomada wadanka Soomaaliya ee aan la dhihin aadan cadde airport ama Muqdisho airport ayaa waxa halkaasi ka cad in shirkadaasi ay awood buuxda u leedahay in ay maamusho dhammaanba ariboorada wadanka Soomaaliya, balse hawsha shirkadaasi u taala ay noqonayso in ay la xaajooto meelaha ay ka taliyaan maamul goboleedyadu sida Somaliland, Puntland iyadoo u maraysa dariiqii ay u martay dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, taasoo ahayd in ay shirkadaasi waan la gashay madaxda sare ee dawladda iyadoo kula heshiisay heshiiska qaybtiisii hore in ay shirkadaasi maamulayso ariboorka Muqdisho iyo sidoo kale dekadda, iyadoo arrinkaasi ay ka biyadiideen qaar ka mid ah xukuumaddii Cabdirashiid Cali Sharma Arke. dabeetana heshiiskaasi oo mar labaad la saxiixay laga saaray dekadda laguna soo qoray $1 milyan in ay dawladdu horumaris u qaadatay shirkadda SKA-na ay u leedahay awood buuxda inay maamusho garoonka aadan cadde airport. heshiiskani ayaa waxa kale uu qeexayaa in 30% ay leedahay dakhliga ka soo baxa ariboorka Muqdisho dawladda ku meel gaarka ah halka 70% kalena ay qaadanayso shirkadda SKA, taasoo ka dhigaysa laba u laab amba ka badan in ay shirkadu qaadanayso dakhliga ka soo baxa ariboorka Muqdisho. haddaba si aynu arrintaasi wax badan uga ogaano ayaa waxa qadka telefoonka inoogu diyaar ah Axmed Macali Xasan oo isagu ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed ee wax ku barta wadanka Ingiriiska, dhawaanahanna ku mashquulsanaa raadinta dukumiintiya ku saabsan arrintaasi oo wax badan ka diyaariyay. sidoo kale tane Axmed waxa uu wax badan ka soo shaqeeyay qaar ka mid ah ariboorada caalamka oo uu ka mid yahay Jomo Kenyatta wadanka Kenya iyo qaar kale. sidaas darteed ayaa Axmed waxaynu wax ka weydiin doonaa bal inuu faahfaahiyo waxa heshiiskanu yahay, waxa ka dhalan kara iyo bal waxa Soomaalida danaha ugu jira. walaal shirkadda SKA waa shirkad horta ka mid ah shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay. waxa ayna ka shaqeysaa wadamada ay dhibaatadu ka jirto oo kaliya sida Afghanistan, Ciraaq iyo Soomaaliya oo ay mar dhow ka shaqo bilowday. marka shirkadani waxay ka ganacsataa arrimaha loo yaqaan security-ga oo ammaanka ah, waxay ka ganacsataa shidaalka, waxay ka ganacsataa waxaan leeyahay clearing and forwarding leeyahay oo alaabada xamuulka oo inta meel laga qaado meel kale la geeyo haddana dadkii dekedaha looga saaro ama airborada looga saaro. marka waa shirkad ay shaqadeedu noocaan tahay, laakiin wadan ammaan ka jiro iyadu shaqo kuma leh. wadamada dhibaatadu ka jirto oo sharcigu ku yar yahay oo maaragtay la xisaabtanku ku yar yahay wadamadaas ayay ka howlgashaa.
واتهاي سوماليا أو الأجهاي يدوبا إن لبعض سنة أما إن كبدن أي دب لعير عيرسو وح هرمرة عني جارين محيطها هي فائدة أي كهني كرتون أي شركة دان اجتماعه أو أي فكر هادسو والله وسؤال مهمة هرت فائدة أي شركة داني هي سنة يسوي سوجرتا فائدة مستقبل كدو هي فائدة مستقبل كفوقه شركة داني وحي كهول جرتا إن أي لو ريكتا دمان أديجي كسعون جري جرون كعالمي مقالة مقدشو وفائدة وقت كدو مركان كهدلينو مركي أرنتاس اجتماعه ماشا سوحا كسو بحيا مرء ورئيسي سينايي وزير كاريمها الدبادة سومالي مرو سينايي برنامج كالليلة توقع BBC دا كبحا وحو سوقاتي إن لكدي ايربوركا بشي اي اوغسو بحضر العق 2 مليون دولار marka waa dareemi kartaa lacagta baaxadda inta la eg leh in uu garoonka muqdisho soo saaro marka faa'iidada ugu jirtaa waxay tahay dhaqaalahaas inay 70% shirkadu ay leedahay oo heshiis ay dawladdu saxiixday oo maartay fasaxayo inay 70% qaadato horta faa'iidada mustaqbalka dhawa waa midda labaad waxay hiigsanaysaa inay garoomada Soomaaliya oo dhan isku ballaariso oo ay sida ay garoonka muqdisho u hawlgasho kale ay u hawlgasho lacagii garoomada ka soo bixi jireen ay mustaqbalka la wada wareegto waxa xusid mudan garoomadaas in barnaamij dib u dhis oo wadanku waa wada burbursan yahay uu ku imaan doono shirkadu waxay hiigsanaysaa barnaamijyadaas in ay iyadu u noqoto isha koowaad laga soo dhacay barnaamijyadaas ka soo dhacaan iyaduna ay fuliso wixii dhaqaale ka soo bixi lahaayna ay iyadu la wareegto markaa واتهاي كل هذه دقارة انتاس لاقي اي سوماليا كجران قارهان اريبورك مقدشو اي كجران محاكو كل في دولدكم ملقار كايدو لعقتا سليس اناي شركات كلا وقعان جلسو هو صح دولده horta si hadii aad u fiiriso waxaad moodaa iyada dhanba inay ku mashquulshay in ay maartay daba cararto deeq bixiyayaasha caalamiga shirar badan oo ay ka qayb gashana mid kasta madaxda dawladdu hadal isku mid ah ay ku soo celceliyaan ay isticmaalaan kaas oo ah in ay deeq bixiyayaasha yiraahdaan waxba kama qaban karno wadankii in aan taageero dhaqaale aan helna mooyaane marka waxaad moodaa iyagii in ay ilihii dhaqaale ee wadanka ay ka dabooshay daba cararka deeq bixiyayaasha inay ka dabooshaad moodaa midda labaad waxaad moodaa inay iyagii laftoodii aysan maaragtay sidaa ugu sii maaragtay dhuundaloolin in ay ilihii dhaqaale ee wadankooda ay howlgeliyaan oo ay wax ka soo saaraan oo ay isleedahay inay u gacan banaanaadaan deeq bixiyayaasha aan hadda kuu soo sheegay tan saddexaad waxaad moodaa iyaga dhanba nimanka dawladda waxaad moodaa mar dhaweeto oo ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlayay dawladdan dambe oo soo dhisay uu ka dhex hadlayay wuxuu lahaa macnaha waxaan iswaafajinaynaa skilliska qofka bini aadankaa leeyahay iyo shaqada uu qabanayo qofku waxa uu soo bartay iyo shaqada markaa loo magacaabayo marka waxaad moodaa in iyaga dhanba hadda airborka oo kaleeto nimanka loo magacaabay markii aad dib usii tixraacdo airborka waxaa loogu talagalay inay howlgeliyaan oo ay maaragtay nidaamkiisa habsami socodkiisa hagaajiyaan ay la socdaan hay-ad la yidhaha hay-adda civil aviation organization oo caalami ah oo ay hoos timaado civil aviation Soomaaliya uu hoos yimaado marka dawladdii waxaa indheedii qariyey Somali Airlines nimana ayay airportka isaga daba celcelisaa Somali Airlines-na waa shirkad ganacsi sharci dejinta airportka iyo waxaasna iyadu shaqo ku male waa airportka dadka isticmaalo oo la yiraahdo airport users ay kamid yihiin marka waxyaabo badan oo iscugsaday ayaa dawladda maaragtay ku kallifaya inay airportkii iska wareejiso mid kale waxay rabtaa inay airportkii aysan ku mashquulin oo ay maaragtay dawladdu waa dawlad iska tabar yar la qaadaa dhacaysa inay mucaarad la dagaalanto waxay rabtaa inaysan aysan ku mashquulin oo ay mucaarad legdankaas ay u gacan banaanaato airportkiina xoogaa yaroo kiraa ay ka qaadato xoogaa dhaqaalaha uu ka soo galo marka waxyaabo badan dhinacyo badan ayay su-aashaasi gelaysaa waa tahay axmed waxaa ogahay inaad horey uga soo shaqaysay ariboorro badan kolleyna aad wax kala socotid nidaamka ariboorrada iyo sidai wax yihiin laakiin haddana wax yar dib ugu laabto isla su-aashii hadda waxaan maqalday in dawladdu lacag 1 milyan oo dollar ay horumaris uga qaadatay shirkaddan waxaana aad hadda hadalkaadii ka mid ahaa inay bishii 2 milyan iyo wax lamida ay ka soo saarta ariboorka
marka inay 1 milyan contract ku gasho iyo inay bishii ayadoo 2 milyan heli lahayd soo wax aad u kala weyn ma xaqiiqdii ayuu kala weyn airportkani airportka horta dawladdu ma gaarin airportada caalamiga waxa jira heer level lagu xisaabiyo oo la yiraahdo levelkaas markuu airportku gaalo marka laga xisaabinayo passengerka ka baxa iyo kuwa ka soo dega tiradooda oo la isku daray marka la yiraahdo levelkaasi gaaray level waxa jira dunidu ay kulligeed isku wada raacsan tahay la yiraahdo levelkaas markuu gaaro waa dawladii gacanteeda xoogaa uu ka badanayaa oo waxa la yiraahdo private sector-ka in lagu wareejiyo ayaa muhiim noqonaysa si uu u tartamo oo dhaqaale inta ka badan u soo saaro marka levelkaas airportkii Muqdisho ma uusan gaarin laakiin runtii dhaqaale ku filan dawladda ku meel gaarka ah ilaa xad baahiteeda oo fara badan dabooli lahaa ayaa airport ka soo baxda waxaana iyaga u dhaqaale badan ummadda jeedkeedana u roon Soomaaliyeed danteeda marka laga fikirayo in airportkii uu gacanta dawladda ku jiro ilaa uu ka gaarayo heer oo 100,000 oo maartay passenger ay ka bixi karaan oo tirada bishii ka baxda ay 100,000 kor u dhaafayso marka tiradaas aad ay u hooseeyaa laakiin dhaqaale dawladda ku filan ayaa ka soo galaya oo uga fiican tirada ay keenayso shirkadan kireysatay ee SKA la yiraahdo waa tahay warar maalmahan dambe la soo dhaxmaraya ayaa sheegaya in shirkadani aanay haba yaraatee faa'iido doonayn balse ay xagga serviceka ama shaqada iyo howlqabadka ay ka caawinayso dawladda ku meel gaarkaasi ee airportkii oo muddo dayacnay ay u hormariso dhismihiisii taawaro caalamiga ay keento isgaarsiin wanaagsan taas maxaa kala socotay Axmed waa sax website Soomaaliyeed ayaan ka akhriyay akhbaartaas laakiin waxaan maartay niyad ahaan iska iri aniga website-daasi waxay khaldayaan ra'yul caamka ummadda Soomaaliyeed oo ummadda ma fiicna in macnaha wax qalada loo baahiyo xaqiiqdu waxay tahay marka laga hadlayo company ama shirkad laga hadlayo waa inuu laba midood hoos yimaada ama waxa la yiraahdo non profit sector oo ay charity-yaasha iyo ku jiraan iyo hay'adahan dadka caawiya ay ku jiraan oo aan faa'iido samaynin inuu hoos yimaado ama uu hoos yimaado company-yaasha la yiraahdo macnaha company-yaasha making business for profit la yiraahdo oo business-ku u sameeya inay faa'iido ka helaan marka company-gi horta xaqiiq ahaan labadii daladood markaa fiiriso wuxuu hoos imaanayaa company-yaasha oo business-ku u sameeya inay faa'iido ka sameeyaan marka faa'iidadii taas ayaa horta xaqiiqo ka dhigaysa inuu company-gii uu dhaqaale qaadanayo midda labaad waxaa daliil aad u ah qodobka labaad maartay heshiiska ay dawladdu la gashay shirkadda kaasoo qoraya inay 70% shirkaddu qaadanayso lacagta laga qaado garoonka 30 ay qaadanayso dawladda ku meel gaarka marka waa war aan sal iyo raad toona lahayn dukumentiga ku qoran yahay waana caddahay loojigana diidaha shirkaddii waa shirkad lacag qaadanaysa lacagtiina kolley daban ma jirto macnaha dalxiisayaal iyo dad businessman oo caalami oo garoonkii isticmaalo oo waddanka Soomaaliya tagaa ma jiro oo dhibaato amaan darro ayaa diiday marka dadka baxaya oo lacagta laga qaadanaya waa dadka Soomaaliyeed marka arrintaa lafteedu waa arrin iyadana maartay xusideeda laakiin haddii shirkadani ay hormarinayso adeegii airportka looga baahnay oo in muddaha aan laga helin laga yaabo inay waxyaabo aad u badan oo ay ka mid tahay qalabkii serviceka sida taawaradii sida isgaarsiintii sida qalabkii wax baari lahaa waxyaabahaas oo haddii keenayso soo lama dhihi karo waa horumar waddanka uu ku soo kordhay aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aasha ugu muhiimsan oo ummaddu ay u baahan tahay inay fahanto horta waxaa jira airportka Muqdisho qalab ayuu lahaa 2004kii 2005 markii Unisom tagaysay anigu waxaan ka mid ahaa shaqaale ka shaqeynaya airportka waxaa yilay tower casri ah oo kan dunida ugu dambeeya oo maanta la isticmaalo oo weliba nooc mobile loo yaqaano ayaa yaalay sawirkiisa website-yada soo gelinay inaad aragteen muqkuri.net waa laga fiirsan karaa uu ku jira sawirkiisa oo horta qalabkaas marka towerka isugu jira oo mobile runway lights ayaa xataa ku jira oo runwayga lights oo mobile oo la dhigayo casriga ku jiray wax ay qalab oo airportka lahay oo maskaxdaada ku soo dhacaya containeray ku jiraan Nairobi Iran nin kasta oo Soomaaliya uu soo arki karaa xarunta la yiraahdo Gigiri oo compound-ka UN compound oo Nairobi ku taala ayuu dhex yaala soo container ku jira marka waxba la casriyeynaya horta waa wax raqiis oo ummadda Soomaaliyeed lagu beer la xusanayo airportka waa casri qalabkiisu casrina meeshu yaala dhismo lagu soo kordhin
dunya ma jiro dhismihiina wuu fiican yahay oo maxaakiimta islaamka xilligay jirtay dhiseen marka xilliga Cabdullaahi Yuusuf waxbay kusoo korreysay dowladdii xitaa hadda waxaan la socdaa oo dadka dhan wada ogyihiin qalab ay airborku leeyahay ummadda Soomaaliyeed leedahay in shirkadda lafteedu ay isticmaalayso dowladda ku meel gaarka ay ku wareejisay marka qalabkiyo casriya wuxuu yaalaa Nairobi container ku jira United Nation Grigri compound uu yaalaa dowladda wuxuu uga baahan yahay channelkii loo mari lahaa inay marto oo ay weydiisato keliya midda kale waxaa jirta hay-ad caalami ah oo maaragtay haddii aan hore usii faahfaahay hay-ad caalami ah oo UN-ku uu xil saaray hawada iyo garoomada Soomaaliya oo UN mandate ku haysata hay-addii hawada Soomaaliya ay wakiil ka tahay Nairobi ay degan tahay hawada Soomaaliya lacag ay ka qaaday haysaa garoomada Soomaaliya ku horumarisaa garoonka Hargeysa oo kale markaa soo qaato lacagaad u fara badan ay gelisay marka taawarka Hargeysa hayada wadda shaqaale u keentay shaqaaleeda tababartay standard oo caalami oo dunida kan ugu heerka sarreeyo ay shaqaalaha Hargeysa hadda u tababaran yihiin airportka Hargeysa waa airport caalami ah marka dowladda ayaa xirfad xumadii haysataa ma ahane xirfad xumo ayaa jirta iyo farsamo xumo mooyaane qalabna lama waayin maaragtay cid airportka caalami ka dhigta oo qabinna lama waayin way buuxaan marka dowladda kolley farsamo xumo ayaan u qiyaasay aniga arrinta ku ceerinaysa in company jeebka ummadda Soomaaliyeed wax ka doonayo faa'iido ka doonayo in ay airportka ku wareejiso marka waxaa qalab casri oo Soomaaliya leedahay ayaa muddo yaalaad leedahay oo aan dawladdu isticmaalin ilaa haddana aan Muqdisho la geynin waa sida in adeer waxa weeye aniga airportka Ghana Accra airport aan kasoo shaqeeyay 2000 kasoo shaqeeyay Bole oo Ethiopia ku yaala ka shaqeeyay Jomo Kenyatta ayaa 2 sano ka shaqeynayay airport macnaha qalabka taawarka Muqdisho u rakiban oo yaala meesha Westland oo UN compound yaala qalab lalaad meel dhigi kara oo wadamadaas aan kusoo arkay xitaa ma jiro wuu ka casrisanaa wuuna ka wanaagsanaa waxa kalaba meel dhigi kara ma jirin marka farsamo xumo un baa jirta mooyaane qalab weyta ma jirto dowladda ku meel gaarka ayaa waxay isku mashquulisay in ay Somali Airlines nin ah oon u dirto hay-addii ninkii Somali Airlines markuu hay-addii tago wuxuu leeyahay waxaan rabaa hay-adda in lagu soo wareejiyo hay-addii in lala wareegaa easy maaha hay-addii waxaa qayb ka ah Somaliland oo waddan macnaha u dadaalay inuu Soomaaliya ka go'o horumar fiican sameeyey ayaa qayb ka ah hawada Soomaaliya Puntland qayb ka ah oo maamul goboleed ah marka waxyaabo aan macquul ahayn ayay meeshii la tagayaan marka waxay noqonaysaa haddii dowladda ku meel gaarka hadalka ay leedahay loo raaco hawada Soomaaliya hala kala gogosto marka waa mid aan caqli ku jirin marka Soomaali oo mid ah markay timaado unba hawadii la wareegi karaa laakiin wixii ka sokeeya waa in nimankaan la yidhaha airportka horumariya bal wixii kale laga hadli doono markii Soomaali ka heshiisay airportka horumariya qalabeeya waa la heli karaa ayadoo lacag laan oo lacag Soomaaliyeed tahay taa waxaa dheer in nimankan oo dowladda ku meel gaarka ee saxiixay heshiiska shirkaddan u saxiixay ay khiyaameen ummadda Soomaaliyeed ee kale maamul goboleedyada ku nool sida Puntland iyo Somaliland markaad soo qaadato waxay isticmaaleen in waxa heshiis ku qoran in ay shirkaddu ka howlgeli karto sharci ahaan airportada Hargeysa iyo Berbera iyo Boosaaso iyo airport kasta ku yaala Soomaaliya gudaheeda marka waxaa usid mudan haddii maamul goboleedyadani kolley ayadoo faahfaahsan website-yadan ku qoray laakiin maamul goboleedyada haddii xoogaa yar isgiijiyaan waxaa dhici doonta in shirkaddu airportadan iyagoo maamul goboleedyada ka warqabin ay xirto waxaa jira channel dunida aviationka marka la yidhaha aviation business lagu wada xiriiro oo la yidhaha notice to airman la yidhaha marka notice to airmankaas aduu sharaxaad dheer u baahan yahay laakiin wuxuu saamaxayaa ninka qofka airport operatorka oo airport ku shaqada loo ka shaqaysiiya in uu caalamka u sheego airportkayga dhismaa ka socota kama socota cid ku dhigi kartaa ma jirto because hadaa sharci ahaan qofkii maaragtay airportka ka shaqaysiinaya ah markaana dowladda way iska istaagayaan maamul goboleedkiina war kama hayo marka niyo waa arrin aad u ballaaran
waxa waaye heshiiskaas dan soomaaliyeed kuma jirto, dan maamul goboleed ummadda soomaaliyeed oo kale joogtaa kuma jirto. waxa waaye waa totally heshiiska soomaali wax dan ugu jirin. marka ummadda soomaaliyeed waxaa fiicnaan lahayd in feejignaan. midda kale maalin dhaweyta ma ay booqdeen niman xildhibaana iyo gudoomiyaha gobolka banaadir xalane oo ay shirkadu degan tahay. waxay kusoo arkeen shirkado badan oo aan laga warqabin oo waddankiis ka soo galay, oo shirkadaasi ay kusoo hoos kabaday, oo aan waddanka rajisreeraysan, cid dawladda kumeel gaarka la socotaa uusan jirin. marka waddanki wuu la yacan yahay, ajnabina sidaas uu soo yaacayaa. marka ummaddii waxay u baahan tahay dawlad xoogan oo danta ummadda u istaagta. hadaxdii dawladdana waabad aragtaa iyaga madaxa isugu jiro iyo ummadan meesha jirina lagu dagaalamaya qoorta 24 saac la iskula jira. waddankiina waa kaasoo 50 shirkadooda hadda xalana degan xamar ninkii joogana uusan warkahay. waad mahadsan tahay axmed. kaasina wuxuu ahaa axmed macali xasan oo isagoo ku sugan magaalada london ee waddanka ingiriiska qadka telefoonka iigu warramayey. dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa barnaamijka xog waran. tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa anigoo ah ciise diirow oo idin leh ammaano allah. adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oo shaa axdi kugu maraya